labadan wadan yaa taangi badan dalka Mareykanka wuxuu haystaa 2700 oo taangi halka dalka China uu haysto 6500 oo taangi marka taangiyada waxaa hodan ka ah oo taangiyada ugu badan haysto dalka China waxaan isbarbardhig ku sameyn doonaa wadanka Shiinaha iyo wadanka Mareykanka yaa awood badan waxaan ka fiirin doonaa ciidamada haystaan yaa tiro badan diyaaradaha ay haystaan labada wadan yaa tiro badan yaa nuclear-ka haystaan yaa tiro badan meelo badan aan ka fiirin doonaa marka koowaad waxaan ku hormareynaa wadanka Shiinaha iyo wadanka Mareykanka wadanka kaalintee ku jiraan markii global rank markii la fiiriyo wadanka koowaad adduunka ugu awood badan waa dalka Mareykanka wadanka saddexaad adduunka ugu awood badan waa dalka China waxba ka awood badan wadan kale ka awood badan marka la fiiriyo qiimeynta adduunka kaalinta saddexaad ku jira haddii aan fiirino dhanka ciidamada yaa ciidamo badan labadan wadan dalka Mareykanka wuxuu haystaa 1.4 milyan oo haystaa oo ciidan ah halka dalka China uu haysto 2.3 milyan marka waxaan dhihi karnaa waxaa ciidan badan dalka China haddii aan fiirino dhanka kale qarashka ku baxa sanadkii ciidamadan yaa budgetka ugu badan ama sanadka ugu yaa lacagta ugu badan ku baxda sanadkii ciidamada dalka Mareykanka sanadkii waxaa ku baxda 816 bilyan oo dollar halka ciidamada dalka China ay ku baxdo 292 milyan marka waxaa badan ciidamada dalka China badan oo saamiga ugu badan ku baxa maadaama iyagu ciidan badan yihiin haddii aan fiirino diyaaradaha dagaalka labadan wadan yaa badan diyaaradaha dagaalka labadan wadan waxaa badan dalka Mareykanka maxaa yeelay wuxuu haystaa 3600 oo diyaarado dagaal oo haystaa halka dalka China uu haysto 2500 oo diyaaradaha ah diyaaradaha loo yaqaano daroonta aan cidna wadin labadan wadan yaa badan yaa iska cadahay dalka Mareykanka badan wuxuu haystaa 1363 ayuu haystaa halka dalka China uu haysto 360 laba jibaar ma aan 3 jibaar laga badan yahay diyaaradaha qomaatiga u kaco helicopterka oo loo yaqaan labadan wadan yaa badan dalka loo yaqaano Mareykanka wuxuu haystaa 1000 diyaaradaha qomaatiga u kaco ee loo yaqaan helicopterka halka dalka China uu haysto 281 helicopter marka waxa dhihi karnaa waxaa badan dalka Mareykanka labadan wadan yaa haysto lidka diyaaradaha wadanka ugu badan ee haysta yaa waay lidka diyaaradaha waa hubka diyaaradaha lagu soo rido wadanka Mareykanka wuxuu haystaa 7400 oo lidka diyaaradaha ah halka dalka China uu haysto 13,000 iyo 700 oo haystaa oo lidka diyaaradaha ah marka lidka diyaaradaha waxaa badan dalka China haddii aan markaan qiimeeno maraakiibta loo yaqaano kuwa biyaha quusa labadan wadan yaa badan dalka Mareykanka wuxuu haystaa 63 maraakiibta quusta halka dalka China uu haysto 70 maraakiibta biyaha quusta marka halkan waxaa badan dalka China maxaa yeelay wuxuu haystaa 70 halka Mareykanka uu ka haysto 63 markan haddii aan fiirino maraakiibta qaadam diyaaradaha qaata dalka Mareykanka wuxuu haystaa 62 halka dalka China uu haysto 17 markab marka halkan waxaa badan maraakiibta ay haystaan wadanka Mareykanka haddii aan fiirino taangiyada labadan wadan yaa taangi badan dalka Mareykanka wuxuu haystaa 2700 oo taangi halka dalka China uu haysto 6500 oo taangi marka taangiyada waxaa hodan ka ah oo taangiyada ugu badan haysto dalka China adduunka waxaa la isugu goodiyaa nuclear-ka wadamada haysta nuclear-ka adduunka waa wadamo kooban haddaba dalka Mareykanka iyo dalka China labadaba way haystaan waan dhahay nuclear-ka marka nuclear-ka labadan wadan waxaa badan wadanka Mareykanka maxaa yeelay wuxuu haystaa 6000 oo nuclear ah halka dalka China uu haysto 400 oo nuclear ah marka tiro isku dhow ma ahan marka dhanka nuclear-ka aad looga badan yahay dalka China warbixintan halkan aan kusoo koobaynaa daawad waxa ka codsanaynaa inaad YouTube-ka iyo Facebook-ka labadaba rukumato si muuqaalada halkan soo geli doono aad ula socoto waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan